heestaasi aad ku macaan aynu intaasi kaga soo noqono kooxaha deegaanka waxay leeyihiin maxaan dhowran caawa waa dhabe madaxweynaha iyo waftigiisu waxaan u malaynayaa safar dheer mayna soo galin oo muqdisho iyo jigjiga waa wax yar waxa loo socdo markaa waa waagay la ambarino mooyaane ma tagaynay bay leeyihiin daanto aan idinku talagalnay oo aaninaba caadi ahayn sug faaraxo dhaantooyinku waa bad xataa waxaa la leeyahay maadaama oo mas-uul heer qarana magaaladii jigjiga caawa joogo haweenkii aad baan u buraanburaynaa bay leeyihiin gabayada iyaga hadalkooga daa iyo aad bay u badan tahay hawshu balse hadba waxaan leenahay kicinaysa un baynu soo gelin doonaa dhaanta waxaa jirtaa deegaanka aad uga caanbaxday iyo dadka afka soomaaliga ku hadlaba in badanna la daawaday ilaa ajaaniibtii bay gaadhay waa tiya talow dirgax war kuma ciyaarta qaanida waxaan ku soo dhawaynaynaa habeen wanaagsan caweys wanaagsan jijiga aan ku wada caweyno
وات وكلا قادم من عكتا وحان إذين كل سيننا هس أنا إذا كنت لقلني أو أي إنه سوذا شيء إنه قاعد دونان أبوان كوين أحمد بدل إيو فنانده عنك نمعو درين هيستاس وحاي لهذا هي إذا ماذا الليوجا علوش عدك الله يوعسي أن moraalkii shacabku waa xaqiina habeen wanaagsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynihii ugu horeeyay ee isagoo xilka madaxtinimada Soomaaliya ay soo booqday habeen wanaagsan baan leenahay caweys wanaagsan jijiga ku soo dhawow wadankaagii labaad iyo dhulkaagii labaad weeyaan caweys wanaagsan waa dhaanto aan idin ku tala galnay ciidamada liyuga caloosha adag allow isee سيوه شليقو رداء معاني حقين وعيني نيه اتهان باران عطرة وما فرين يعواها البحور سكاهي عدا عجابي سيوه شليقو رداء معاني
geese ciidamada liyuga ee caloosha adag oo ka dhashay ilintii shacabka deegaanka Soomaalida isla mar ahaantaana ballantii iyo wacadkii ay u mareen shacabka deegaankan ka dhabeeyay waxaan ognahay inuu lagu kala tegay riwaayadii bana ay ku dhamaatay the end filmku markuu the end soo qoro maxaa xiga waa lagu kala tegay waa lagu kala tegay ciidamadana hambalyo ayaan u diraynaa ciidamada liyu booliska habonay heesuhu weli iyo cawiisku fari kama qadna heesihii hirgalay waxaan u malayn waayaan xusuustaa kugu yeeray heesihii hirgalay bal dib u xusuuso beachkii hore waa hagaag haddii aan mimarigayga dib u baadho heesihii hirgalay aad ba u badan yihiin haddii la yidhahdo caawa ha la qaadana caawa iyo caawayaal fara badan bay u baahan yihiin oo laisku gegeeyey laisku gegeeyey oo aad u badan aad bay u fara badnaayeen laakiin waxaan soo qabanayaa hees ka mid ah heesihii hirgalay kooxda ilays baan baa samaysay heestaa waxaa la yidhahdaa dastuurka haddii aan micneeyana dunidayna maqal darisow ogsoonow deegaanka Soomaalida Itoobiya dimuqraadi baan nahay caways wanaagsan ha soo galaan soo dhawow madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wafdigu hogaaminayo jijigaan ku wada caweyno waxa soo dabaaldega waxa soo fanaaniina waxa oo dhan waxa loo sameeynayaana waa soo dhaweynta kalka iyo laabtaan idin qabno soo dhawaada دستوركي وشعيدا جرا يبكو كلا دمينا لن تقول قل إيهوس قدي دابا قشا جرا لن تقول قل إيهوس قدي دابا قشا جرا دكسي
No
kacay oona deeqibaajiya wada allahayo waanu dooranee waanu u ducayne hana dadashaa nabiga amiin hana dadashaa nabiga amiin aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi dayax nuurshe baa jira waana hees run ahaantii aad u qiimo badan abwaanka iyo ciddii kaalinta ka geysatay heestaasi ku biirtay heesaha hirgalay aad baan ugu mahad celinaynaa farax hawshu caawa ma yara weli memorygaagaan dib ugu noqonay xusuustiina dib u soo celi waxay aan is leeyahay si cawaysku u laba shad ma uu shidan yahay hal hees oo heesihii ugu qiimaha badnaa gadaal baan marinaynaa midba miday ka macaan tahay yaanu xaaladdu markay sii yara adkaataba soo wadaynaa haddaba munaasibadan aadka u qiimaha badan ee intaas oo qof kulmisay isla markaasina aadka u sharafta iyo ciziga iyo karaamada mudan waa munaasabad ka duwan munaasabadii hore xataa jawiga ka duwan jawiyadii hore cimilada xataa laftirkeeda waa run habboonay dayaxa iftiinkiisu uu nuurkiisu isa soo tarayo ee jigjiga ka bildhaamaya waxa uu suuragal ka dhigay in dad badan oo aan jigjiga arag maqal ay ku soo hayaamaan si hagar la'aana iyagoo qalbigooga ku haya wanaagga shacabka deegaanka soomaalida iyo jigjiga lana jecel horumarkaasi inuu sii socdo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ka mida socdaalkiisii muqdisho tu jigjiga taariikhda ha galo horaan u socdaynaa waad mahadsantahay faarax adiga laftirkaaga caawa abwaan sahlan ma tihin faaraxow saad sheegtay cimilada iyo dayaxa iyo xidigaha iyo jawiga iyo neecawdu way ka duwan yihiin intaas oo dhanna waxa aan odhan karnaa oon ugu faraxsannahay si kaliya laaba waa madaxweynaheena sharafta mudan inooga yimid magaalada muqdisho waxaan nahay uliya diirkeed shacabkii reer muqdisho guud ahaan iyo soomaaliya oo dhanba waxaad naga gaadhsiin in deegaanka shacabka ku nool maamul iyo shacab odayaal dhaqameedkii garaadadii ugaasyadii si kaliya laabaan idin jecelnahay noolaada xilka iyo waajibaadka idin saaranna allah idinku asturaan leenahay
مسوقني إنان هول يا ريستين انت عودك ويهين أضانيك كوهي انت عودك ويهين أضانيك كوهي انت عودك ويهين أضانيك كوهي dadkaygo adan heegan ku ahay تعود كويهني أنا هيك كوهي dadkaygo adan heegan ku ahay أجر كما قلانا عليس كما بقانا هاي عرلي جيجو يو هو الليل تودو قد يقول يوان كوكور هديميو أجر كما قلانا عليس كما بقانا هاي إنان هول يا ريستي تعودك ويهين أضانيك كوهي تعودك ويهين أضانيك كوهي انت عودك ويهين أضانيك كوهي dadkaygo adanheegan ku ahay انت عودك ويهين ليهيغن بانهي dadkaygo adan heegan ku ahay horumarkaaga mooye hanka weli ma soo geli inaan hawl yaraysteen taawad ku yihin adaaniga ku ahay taawad ku yihin